halkan waxaan u yeedhayaa safiirkii hore ee dalka China Cabdirasaaq Maxamed Migiste. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ugu horeyn waxaan jecelahay in halkan ka salaamo madaxda isbahaysiga ucid iyo wadani ee dalka Norway oo soo qaban qaabiyay shirkan jirayd sidoo kale waxaan jecelahay in salaan halkan uga diro madaxda sare isbahaysiga ucid iyo wadani inta kadib hadalka badin maayo laakiin waxaan jecelahay inaan kusoo koobo laba saddex qodob ka ugu horeeya waxa weeye in halkan tacsi uga dirno dhammaan dadkii ku dhintay mudaharaadkii 11 August aynu ilaahay u barino in naxariistii janno ka waraabiyo intii ku dhaawacantayna inaynu nahno ilaahay caafimaad saraacan ha siiyo waxaan kaloo jecelahay intaa kadib inaan in yar halkaa iftiimiyo dadkaasi waxay ku dhinteen laba qodob oo ugu muhiimsanaa ta ugu horeysa waxay ahayd mudaharaad salmiya ay ahayd ay ku dhinteen mudaharaadkuna waa isu soo bax sharciya oo cid waliba ay dunida dimuqraadiga sheegata ay xaq u leedahay inay samaysato dareenkeeda ku cabirto waa isu soo bax aan hubaysnayn ay ku cabiraan dareenkooda qodobka labaad waxay ku dhinteen in ciidankii ay cashuurtooda bixin jireen ay rasaas ku fureen oo iyagoo dad mudaharaad iyo aan hubaysnayn ayaguna rasaas ku fureen marka waxaan odhan karaa waxay ahayd gef aad iyo aad u weyn ama waxaa lagu tilmaami karaa xasuuq aad iyo aad u weyn oo ka dhacay meeshaas halka Somaliland waxay u mudaharaadayeen waxay ahayd in la qabto doorasho ayaa ay ku dhawaaqayeen meel walbana way ku jirtaa meel walbana way ku duuban tahay dhibaatada ugu weyn ee maanta taaganina waxa weeye waxyaabo waxa jira aad iyo aad la yaab ah waxaynu ilaa hadda dadkeena badankiisa iyo madaxdeena iyo dadkeena waxgaradku isku haystaan November 13 bisha November iyo 26 December ta horeysa qof kasta oo bila aadan uu garanaya in 13 November horeyso doorashada madaxweynuhuna waxay u aastaysantay 13 November ta ururaduna wixii 26 December ka dambeeya ayay u aastaysantahay sidaa daraadeed wax la isku khaldo ama wax isku khaldan maaha marka waxaynu boorinaynaa ama aynu taageeraynaa in doorashadu waqtigeeda ay ku dhacdo waxaan kaloo jecelahay halkan inaan ka jeedino cambaaraynayno falkii foosho xumaa ee ka dhacay 11 August magaalada banaanbixii salmiga ah ee ka dhacay gobolada Somaliland Hargeysa oo laguma dhiman Ceergaaba lagu dhintay Burca lagu dhintay dhammaan gobolada badankood saddex gobol ugu waaweyn waa lagu dhintay waxaynu halkan u fadhinaa aynu halkan isugu nimi dhammaantii waxaynu rabnaa wanaagga iyo horumarka waddankeena wuxuu ku imanayaa inaynu tixgelino dimuqraadiyadda xusbiyada iyo doorashooyinka madaxweyne xoog ku yimi ma jirin madaxweyne hadda joogaana xoog kuma iman kuwii ka horreeyana xoog kuma iman nin walba wuxuu ku yimi doorasho taynu hadda rabno inaynu qabanaano waa doorashadii uun marka waxaan hadalkayga kusoo gabagabeynayaa wixii dhacay waxay ahayn wax fool xun waxaynu codsanaynaa inaanay mar dambe dhicintii maalintii dhoweyta dhacday oo kale ee dadku ay xaq u leeyihiin inay si salmiya u mudaharaadaan waxaynu codsanaynaa in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo si maxaan dhahdaye aynu u wadno geedigii dimuqraadiga ah ee socday ee cid waliba la madaxweynayaashii ka horreeyay ay kasoo qayb qaateen marka waxaynu leenahay u rajaynaynaa dowladda Somaliland madaxda hadda joogta in ilaahay garansiiyo in ay doorashadii iyo dimuqraadiyadii Somaliland ay kusoo nabad iyo caanamashay inaanay burburin ee halkeedii kasii socoto ugu horeyn waxaan jecelahay inaan halkan tacsi uga diro qoyskii ehladii iyo dhammaan shacabka reer Somaliland iyo inta af Soomaaliga ku hadashaba geeridii naxdinta lahayd ku timi abwaanka weynaa
hadraawi waxaan leeyahay dhammaan samiriye iman ilaahay naga siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ilaahay samiriye iman ka siiyo isagana naxariista janno ilaahay ka waraabiyo assalaamu calaykum aad buu mahadsan yahay migiste